بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، كسو دواذا برنامج كيني أها محات كوريوتين. برنامج كينا ما انتوحان كسو قادان دونا هدو اللي يراهدو أفريو هدي آد كوريوتو سلمركاس كو دقاق in aad samaysato qasnad si aad hantida kuu soo socoto aad ugu xareysato, ama waxaan ku dhihi lahaa samayso account ayaan ku dhihi lahaa biidnillah. afarta riyo aan maanta idinku talagalay inaan idin sheego insha Allah waa qofkii arka afartan riyo waxa uu ku bishaaraysanayaa in uu helayo sida uu dhaqsiyaha badan hanti fara badan biidnillah. riyada koowaad waxa waaye qofka haddii uu ku riyoodo isaga oo xirfad samaynayo, yacni ay nooc ha ahaato xirfadda, isagoo faryaamo ah, isagoo magaranaysaay makaanika ah, ayu nooc, isagoo fuundi ah, xirfad meeshay ka imaado. haddii qofka habeenkii isagoo seexday qalbigiisana markuu seexanay aysan ku jirin, markii uu seexdo habeenkii uu ku riyoodo wixii uu arkay isla markaasna uusan ilaawin, waxaa habboon in markaasi isla markaas uu arko inuu ku dhaqaaqo sidoo ku samaysan lahaa qasnad, waayo ilaahay irsaqiisa ayaa u soo socda oo adduunyo ayaa yacni u soo furmi doonto. midaas waa midda koowaad. midda labaad waxa weeyaan haddii uu arko isaga oo qof magac leh wax u hadiyeynayo, hadiyo ayaa lagu siinaya. qofka ku siinayo waa qof magac leh, sharaf leh, laakiin qofkaas magac leh, sharafta leh waa inuu u dhawaadaa dhinaca diinta. qof boqor ah waaye, ama qof magaranaysaay isheeg adiga suldaan ah waaye, ama qof wadaad ah waaye, sheekh caalim ah waaye, ya qofkaas waa inuu diinta u dhow yahay. laakiin qof magac leh oo waxaa jiro dhinaca munkarka oo caan uu ku noqday ayaa jiro, kaas kama hadlayno. waa qof diinta xaggeeda sharaf iyo maamuus iyo magac ku leh. aad aragto hadduu wax kuu hadiyeynayo, waxaad ku bishaaraysataa in adduunyo ay kuu soo socoto. riyada saddexaad oo lagu fasiro in aad hanti heli doontid waxa weeyaan adigoo cunaya raashin baad cunaysaa. haddii aad ku riyooto adoo raashin cunaya, raashinka noocuu doona ha ahaado, raashinka kala sii fiican, waxa ugu sii fiican khudradda ama magaranaysaa raashinka la dhahayo faakihada. raashin gaajo loo cunayaa jiro iyo mid oo faakihaysi iyo macmacaansi loo cunayo ayaa jiro. raashinka macmacaansiga loo cunayo ayaan ka hadlayaa, sida tufaaxa, muuska, cambaha, babayga iyo wixii la mid ah. qofkii arka raashin isagoo cunaya, waxaad ku bishaaraysanaysaa in gordhow hanti yacni aad iyo aad u fara badan aad heli doonto, adduunyo aad heli doonto, ama shaqo aad kasaysay oo aadan haynin ayaa lagugu wici doonaa. shaqo ayaa kuu soo socoto, sabab bay yeelan doontaa. xirfad adiga aad kasaysay ayaad ku heli doontaa, ama hawl adiga aad haysay ayaad ku heli doontaa, amaba qof dibadda jiray oo warkiisa aad la-eed ayaa akhbaartiisa heli doontid. qarash ayaa lagu soo diri doonaa alaa ayi xaal. laakiin raashinka qudhiisa waa kala yahay. raashinka midka ugu fiican waa kuu sheegay, laakiin bishardi waa raashin gubtay inuusan ahayn, amaba khudaarta aan kuu sheegayo waa mid aysan ahayn, waa inaysan ahayn yacni khudaar bolol ah ama dirxi ku jiro. dirxi haddii ku jiro ama bolol ay tahay ama dhinac ay ka gubsan tahay, macno kale ayay yeelan doontaa. raashinka oo la cunayana caadiga sida baastada iyo bariiska iyo muufada iyo wixii la mid ahna, iyagana waa inuusan ahayn raashin gubtay. waa raashin magaranaysaa cusbada ku badatay inaysan ahayn. waa raashin oo yacni magaranaysaa nooc kale ah aadan ka saynin inuusan ahayn. raashinka caadiga ahay waxaa shardi ah in raashin nadiif uu yahay markaad cunaysid aad ku macmacaansanaysid. midda ugu dambeyso afaraad waxa weeyaan qofka hadduu arko uu ku riyoodo gabadha sideedaba waxaa lagu fasiraa adduunyo.
gabdhaha kala ah meeshay rabtaa la ekaato qof weyn ha ahaado qof dhexdhexaad ha ahaado waxaa la diidaa bas canug yar ayaa la diidayaa canuga yar macno kale ayuu yeelan doonaa canuga yar isna waa sii kala baxaya canug qoslaaya muu ahay canug naafe ah miya oo xibin la miya macno kale ayuu yeelan doontaa sideedaba macno kale ayay yeelan doontaa faltaqatahu aalu fircauna liyakuna lahum caduwan waxazana marka ilmaha yar badanaabo waa la kala bixiyaa ilmaha yar sidoodaba ma fiicna riyada laakiin canug qoslaay hadduu yahay caafimaad leh qurux badan macno kale ayuu yeelan doonaa canug naafe ah hadduu yahay macno kale ayuu yeelan doonaa afartan soo sheegnay ayaan idiin soo dulmarayaa midda hore waa inaad xirfad ku riyootaa haddaad xirfad ku riyootid hanti ayaa kuu soo socoto mideeda labaad waxay ahayd waa in wax lagu hadiyeeyaa waxay doonaan ha ahaadaan qofku wax kuu hadiyeynayana qof magac leh sharaf leh maamuus leh diinta xaggeeda waa inuu ku ahaadaa midda saddexaadna waa inaad ku riyootaa raashiin nabiyullaahi zakariya markii uu soo geli jiray maryama binti cimraan wuxuu dhahay كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا مركاسو وحو دهي قال وحو دهي يا مريم أن لك هذا راشينك أنت كنتي مركاسة وحد هذا قالت هو من عند الله الحقي سأيو كأهذي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب marka raashinka hadii aad cunaysid aad ku riyootid sidaas ayuu fadli badan uu leeyahay mid saddexaadna waxay ahayd gabar hadii aad ku riyooto saas oo kale adduunyo ayaa ku soo socoto qasnadaada diyaarso akawkaaga furo هذا والله أعلم كومنتي واحد نوصو قرطان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سيان أغانو انت قف أو مسلمين نبيغا نقول السلسي سيان أغانو صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله